dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen allow dhow Somaliland dhallinyarada way dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhiribeen allow dhow ودرارتي لنتاجي بدي بيع على كيني دلان كينو نبض كسر ودرارتي لنتاجي بدي بيع على كيني دلان كينو نبض كسر وما هدافها وانا كدسها وحيد عيابها لكيس عياها وطني دبتها اللولو وما هدافها وانا كدسها وحيد عيابها لكيس عياها وطني دبتها اللولو halkan aan ka markaana ah gudoomiyaha xisbiga wadani airportka waa airportka Finland magaalada caasimadda Helsinki waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow waxaan dhammaan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo jaaliyadda Soomaaliland ee joogta dalkan Finland intii ka soo qayb gashay xilligan aadka u dambeeya waqtigeeda u hurtay waana mahadsantihiin aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa raxiim waxaa halkan aanu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo marwadiisa farduus maxamed rooble aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada Finland qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada reer wadani oo isku duuban annagoo ah ayaanu soo dhaweynaynaa aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan wadani oo dhan iyo xisbiga iyo gudoomiyaha caafimaad iyo cimri dheer insha Allah aad baan u salaameynaa aad baan u soo dhaweynaynaa ma sha Allah saacadu waa 12 habeenimo waxaanu joognaa Finland 12 habeenimo waxa ummadii waxay soo jeedeen inay soo dhaweeyaan gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani xilliga waxaan u taaganahay 12 habeenimo aan soo dhaweyno gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ku soo dhaweeyay Helsinki dhammaan marwadiisa iyo asxaabta la socota waxaan soo dhawaada rahmatullaahi wa barakaatu cabdiraxmaan baan soo dhaweynay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani waxaanu leenahay ku soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa 100% baanu ku soo dhaweynaynaa insha Allah taala khayr iyo barako anana waa nabad qabnaa iswareysigeena kale iyo barnaamijkeena kale wuxuu noqon doonaa debayla tahay waynu kulmi doonaa laakiin airportkii baanu joognaa 12 habeenimo waa ku soo dhaweynay soo dhawow ku soo dhawow salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu bismillaahi raxmaani raxiim gudoomiye marka hore waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu waxaan ku leeyahay gudoomiye ku soo dhawow wadanka Finland caasimadiisa Helsinki qacmo furan qalbi furan ku soo dhawow halkana waxa kugu soo dhaweynaya dhammaan dadkii kamid ahaa jaaliyadda Soomaaliland iyo xubnihii kamid ahaa xisbiga wadaniba ku soo dhawow baan ku leeyahay qalbi furan iyo qacmo furanba bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha mustaqbalka dhow ahna gudoomiyaha xisbiga wadani mudane maxamed cabdilaahi ciro saacadu waa 12 iyo barkii inta waxaanu ku faraxsanahay halkaana dhigay inaanu soo dhaweyno mudanaha iyaga raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halkan waxaanu isugu nimay aanu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ahna gudoomiyaha xisbiga wadani anigoo ah deeqa maxamed aadan aad baan u soo dhaweynaynaa isagiyo marwadiisa farduus rooble aad waxaan leenahay ku soo dhawaada Finland madaxweynaha iyaga mustaqbalkana insha Allah aan ku rajo weynana insha Allah waxaan leeyahay guul wadani bismillahir rahmaanir rahiim sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxaan jecelahay inaan mahadnaqo dhammaan jaaliyadda reer Soomaaliland
dalka Finland iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo mas'uuliyiintiisaba boqosho gaaban oo 2 cisho baan ku imi halkan iyadoo aan ku lahaa ballamo laakiin socodkayga rasmiga ah wuxuu ku aadan yahay dalka Ingiriiska oo aan ballamo fara badan ku leeyahay muddo 2 wiig haddii Ilaahay ka dhigo kuwaasoo ku saabsan arrimaha Somaliland iyo arrimaha xisbiga intaba. baarlamaanka Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Helsinki Vantaa Airport xilli saacadu ahayd 12 habeenimo. waxaa garoonka ku soo dhaweeyay madaxda jaaliyadda odayaal waxgarad haween dhalinyaro iyo taageerayaasha xisbiga wadani oo hurka iyo gudoomiyaha Finland Cabdiraxmaan Cartan. soo dhaweynta ka bacdi waxa uu gudoomiyuhu halkaasi ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jecelahay inaan mahadnaqo dhammaan jaaliyadda reer Somaliland dalka Finland iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani iyo mas'uuliyiintiisaba boqosho gaaban oo 2 cisho baan ku imi halkan iyadoo aan ku lahaa ballamo laakiin socodkayga rasmiga ah wuxuu ku aadan yahay dalka Ingiriiska oo aan ballamo fara badan ku leeyahay muddo 2 wiig haddii Ilaahay ka dhigo kuwaasoo ku saabsan arrimaha Somaliland iyo arrimaha xisbiga intaba. waxaa Home Cable TV weydiiyay gudoomiyaha xilliga uu kursiga baarlamaanka iska casiri doono wuxuuna kaga jawaabay jalaalatina ka diga adigu dhaqsan ugu digaya insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo kale madaxdii iyo odayaashii soo dhaweeyay ayaa iyana waxaa ka mid ah hadaladoodii dhaweynayna gudoomiyaha golaha baarlamaanka isla markaana ah gudoomiyaha xisbiga wadani airportka Finland saacadu waa 12 habeenimo waxaanu joognaa Finland 12 habeenimo waxaa ummadii waxay soo jeedeen inay soo dhaweeyaan gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan baan soo dhaweynay gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan ku leeyahay gudoomiye ku soo dhawow wadanka Finland caasimadiisa Helsinki halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha mustaqbalka dhow ahna gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gudoomiyaha ayaa loo soo galbiyay dhanka iyo gurigiisa oo ku yaala caasimadda wadanka Finland ee Helsinki. Aadan Yuusuf Ismaan, Home Cable TV, Finland.